Jaalayaal ma la socotaan sida ay buuraleyda Itoobiya u bumbuurinayso uguna faanayso wax soo saarka beeraha deegaanka Soomaalida ee ay ka daman yihiin una dhugla yihiin dadka Soomaaliyeed ee iska lihi shacab iyo dawladba bal ila daawo sheekada ninkan. بهذه المناسبة التي جئنا لأجله وهو زيارة منطقة الصومالية التي تسمى بجيجيجا، وأنا هنا يعني أمامكم وخلفي وأمامي وجنبي مزرعة كبيرة جدا، مزرعة قمح، وهناك أيضا مزرعة ذرة وغيرها من المزارع الكبيرة. نينكani waxa uu kamid yahay wariyaasha buuraleyda Itoobiya, waxa uu kamid ahaa koox wariyaal iyo activistiyaal buuraley ahaa oo maalmahan booqasho ku yimi beeraha gobolka Faafan, gaar ahaan beeraha banka Tuliguuleed oo Barre iyo Haroreys. waxaana ujeedku ahaa inay wafdigan indhahooda ku soo arkaan kana sameeyaan sheekooyin ay ku iibgeeyaan adduunkana ku tusayaan khayraadka Alle ku manaystay iyo wax soo saarka beeraha deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Ustaadkani waxa uu leeyahay oo uu sheegayaa in dhul beereedyadan qamadinka iyo hadhuudhka ee deegaanka Soomaalidu aynan kuwa la mid ahi iyo xataa kuwa u dhowi ka jirin deegaanada kale ee dalka ee u badan buuraleyda. waxa uu sheegayaa inay la ashqaraarsan yihiin aadna ugu faraxsan yihiin wax soo saarka beeraha hareeraha Jigjiga ku yaala. si ay fariintiisu u gaadho dunida Carabta, Itoobiyana ugu faanto wax soo saarka, waxa uu ustaad ku gudbinayaa afka Carabiga isagoo oo sheegaya in Itoobiya dadkeedu halkaas kaga gudbeen saboolnimadii iyo gacan hoorsigii, sidoo kale inay ka gudbeen sanado badan oo dhib iyo gaajo ahaa ee lagu sheegi jiray caankana ay ku ahaayeen reer Itoobiya, iyo in Itoobiya hadda gashay una curtay isku filaansho cunto oo buuxa, ayna la soo baxday wax soo saarka dhulka, lana soo baxday cunto ku filan kana badbadan oo ay xataa dunida kale u iibgeynayaan. garo oo beeraha uu sidaas oo idil ugu faanaya dalku, sidaas oo idilna u iibgeynayo waa wax soo saarka iyo beeraha hareeraha Jigjiga ku yaala kaliya. bal ka waran imise dhul beereedyo aynu dayacnay iskana indhatirnay ayaa ku yaala guud ahaan deegaanka Soomaalida 11 gobol. oo ka waran haddii maanta intaas dhul beereed uu wax soo saar ka soo ku ilaha ma weyna fariintii farxadda Itoobiya intan ka cuslaateen. أريد أن أقول هنا هنيئا للأثيوبيين، هنيئا للحبشيين في أنحاء العالم. ustaadku waxa uu wax soo saarka beeraha hareeraha Jigjiga ugu hambalyeynaya dhammaan dadka reer Itoobiya, dhammaan xabashida meel kastoo ay ka joogaan adduunka. waxa uu leeyahay hanii'an maanta waynu ka qalin jabinay saboolnimadii ee. haddaba jaalle weydiinta halkan ka dhalanaysa waxay tahay maxay ay reer DDS u arki la'yihiin uguna faan la'yihiin oo ay tacab u gal la'yihiin wax soo saarka iyo khayraadka dhulkeena ee arkayaan kuna faanayaan dhammaan Itoobiyada kale. aragtidaada weydiintan commentiga inagu reeb. jaalle like na inoo saar muuqan, subscribe noo dheh channelkan YouTube, wax weyn ay inooga dhigan tahay mahadsanid.